dhanka Soomaaliya markana dastuurka federaalka ee ku meel gaarka ee Soomaaliya waxa inta badan lagu qoray luqad dhexdhexaad ah marka la eego dhanka jinsiga waxa uu sheegayaa in haweenka Soomaaliyeed ay u tartami karaan xafiisyada dalka ugu sareeya haddana waxa cad in nidaamka siyaasadda iyo dhaqanka bulshada ay weeqayaan haweenka la himilooyinka siyaasadeed Samira Jaamac ayaa eegaysa dadaalada ay haweenka ugu soo jireen hanashada qoondada dumarka 20 sano ee tagtay marxalado kala duwan ha ku jira dalkee in ka badan 60 sano oo ay dowladnimada Soomaaliya jirtay doorka dumarka waxa uu ahaa mid doodiisu aanay si waafi ah u miro dhalin dadaallo isdaba joog ah kadib dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya ee dhaqan galay 2004 waxa ay dumarku xaq u leeyihiin inay qabtaan xilalka ugu sareeya ee dalka walise waxaa jira buuro aan la dhaafi karin oo ku horgudban bulshada iyo dimuqraadiyadda dalka runtii haddii awoodda ay helaan muxuu ahaay loona siiyo muxuu ahaay space ay geli karaan haweenku door weyn ay ka qaadan karaan arrintan mana aha wax ay hadda bilaabayaan oo mar hore soo bilaabatay ilaa waagii xornimo doonka siday haweenku u dadaalayeen ilaa waayii dambe muxuu ahaay wadanku dagaalada ka dhacay oo la is hor fariistay nidaamka federaalka ayaa ilaa iyo xad awood siiyey in golayaasha sharci dejinta dalka ay soo xulaan oday dhaqameed waxaa halgan loogu jiray in dumarku kuraasta baarlamaanka ka helaan qoondo loo qaateen ah hadda laakiin in dadaal badan iyo waqti badan la gelinayo sidii gabdhihii kootadoodii ay ku heli lahaayeen waxaan rajaynaynaa xubnaha dhiman inay dhammaystirmaan maadaama ay xubno hareen rajo weynaan ka qabnaa inay soo dhammaystirmaan 30%. golayaasha sharci dejinta Soomaaliya imika 24% waa dumar waxaase dib u soo cusboonaanaya cabsida laga qabo in tiradaasi ay isdhinto doorashada xigta ee dalka inkastoo heshiisyadii ugu dambeeyay lagu dhigay in qoondo 30% ah la xaqiijiyo sababta looga baqayaa waxay tahay in aysan diyaarsanayn oo ayna jirin jadwal habraac oo lagu soo xulo kuraastii haweenka sababta aan uga baqaynana waxay tahay waxaan ka soo baranay 2012 in haweenkii ayadoo ballantaasi taalo haddana 14% ay heleen laakiin 2016 markaa nimid juhdi badan oo maaragtay la geliyey beesha caalamka iyo hogaamiyayaasha u ololay haweenka oo israacay waxa la keenay habraac ay ansixiyeen madashii qaranka taasoo dhigaysay maaragtay 30% kaliya maahane sida loo maareynayo oo lagu helay 24% tiiba marka maanta maqan oo kalifaysa inaan ka cabsano inaan dib ugu noqono kana yaraato maadaama wixii qabiil lagu qaybsanayo qabaa'ilka qaarna ina dumar doonayeen kuwana ayba rabaanba kuwa hadda metelaya inay rag ku bedelaan qorshe la'aanta qoondada dumarka ee la durayo waxaa dheer caqabada dhaqaale iyo in dumarka aanay qayb ka ahayn wada hadallada lagu jaangooynayo masiirka siyaasadeed ee dalka Samira Jaamac BBC